بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. aroornimadan waxaan usoo fariistay liveka ama social mediaha. waxay soo gaartay walaalkeen doctor cali maxamed saalax in uu haleelay cudurkan halista ah oo ummadda iyo caalamka ay ka argagaxsan yihiin ayna soo gaartay. arrinta ayada ah ayaa runtii aroornimadan soo gelisay social mediaha. doctor cali maxamed saalex waa imaamka masjidka weyn ee tawfiiq ee oslo norway ku yeelo. doctoorka marka xanuunkaas coronaha ah ayaa ku dhacay. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu caafimaad siiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dembi dhaaf ugu dhigo. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu darajadiis ku saramariyo. doctoorka xali ayaan mar message u duubay. kolleyba xaaladiisa khatar aada uma ahan, laakiin weli xanuunka wuu hayaa. gurigiisa ayuuna joogaa oo isbitaal kuma jira. marka tan koobaad alla baryadaas inaan wadaagna dhammaanteen oon ilaahay subxaana wa tacaala walaalkeen u barina ilaahay inuu caafimaad deg dega siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala, iskuna boorinaynaa. maxaa yeelay doctoorka waa nin sheekh ah, waa nin daaci ah, waa nin bulshada ka dhex muuqda oo ummadda wax badan la qabto una qabto. 20 sano ama 30 sano ummaddan ay burbursanayd oo dadka ilaahay uu ku badbaadiyey diintooda, ummadda diinta ay la daba socdeen, tacliinta ay la daba socdeen, dadaalka ay la wadeen ayuu ka mid yahay. jazaahu allahu khayran. marka inaan usoo duceyno ayaan isku boorinaynaa insha allahu tacaala. taas waa qodobka koobaad. arrinta labaad, xanuunkan in la ogaado inuu imtixaan ibtile yahay. ibtile haddii ay timaadana nabigeena siduu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam, sacd ibn abi waqaas kamaa cinda tirmidi wabni maajah ayaa wuxuu weydiiyey ninka la yiraahdo sacd ibn abi waqaas ayuu nabigeena weydiiyey sala allahu calayhi waali wasalam. wuxuu weydiiyey, nabi allow dadka yaa ugu imtixaan adag? markaasaa nabigeena wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam, ambiyada ayaa ugu imtixaan adag, huma alamthal falamthal, kadibna huma alaslax falaslax. sida loo kala suubanaan badan yahay oo alla looga dhawaasho badan yahay ayaa waxaway imtixaankana uu jira ayuu nabiga cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam. marka sheekh imtixaankaas ayaa kolleyba ragga la imtixaama ayuu ka mid yahay. waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu caafimaad deg deg siiyo, imtixaankan uu ku guuleysto, wuuna ku guuleysanaa biidn baari tabaaraka wa tacaala. alla ayaan ka baryaynaa. marka imtixaankaas noocaas marka wanabluukum bishari walkhayr, shar iyo khayrba waa laisku imtixaamayaa. oo khayr kaligii shar kaligii laisku imtixaama, shartan waa laisku imtixaamaa, khayrkan waa laisku imtixaamaa. marka sheekha jazaahu llahu khayran, ahlu khayr ayuu ahaa, waana naqaanaa. waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu sabar badanna siiyo, caafimaad deg degna siiyo, darajadiisna saro mariyo. ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo caafimaad qaba uu ummadiisa kusoo dhex celiyo, dacwadii iyo khayrka u wadayna uu min jadiid u bilaabo. ikhwaani ilkiraam, waxaad ogaataan xanuunkan wuxuu ku dhacaa qof wanaagsan iyo qof xunba, wuxuu ku dhacaa qof muslim iyo qof gaal ah. marka ummadda waxaan u sheegaynaa, dadka qaraya waxay leeyihiin gaalada unbuu ku dhacaa, markaasaa wax badan bay qasayaan. iyaga waa dad runtii wax magarato ah, laakiin ummadda ay wareerinayaan, ummadda ay qasayaan. shaki ma lahan cudurkan imaadka u imaaday waa imtixaan. qofka mu'minka ah iimaankiisaa lagu imtixaamayaa. qofka mu'minka ah alla ku-xirnaantiisaa lagu imtixaamayaa. qofka mu'minka ah sabarkiisaa lagu imtixaamayaa. sidoo kale qofka aan dhowrsanayn amaba ilaahay aan ku xirnayn, waxaa suuragal ah inay sabab u noqoto inuu alla usoo noqdo subxaana wa tacaala. waxaa suuragal ah inuu tooba keeno. waxaa suuragal ah inuu alla subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo dembiye uu ka galay uu ugu soo noqdo ayaa suuragal ah. ood waana qaato, ku cibro qaato. gaalada laftirkooda waxaa dhici karta kibirkii iyo qadrasadii ku taagnayd iyo isla weyninkii iyo adduunkan ay u haysteen in iyaga ay gacanta ku hayaan
oo cid kaloo la maamusha ayna jirin, inay muxuu ahay arrinta ayada ah darsi u noqoto oo kibirkoodii ay kasoo noqdaan, ayadna waa suuragal weeyaan. marka waa imtixaan. dad badan ayaa ilaahay subxana watacala inuu ka hanuuniye laga yaabaa, dad badan ayaa laga yaabaa inay shahaada ay ku helaan, dad badan ayaa laga yaabaa inay tooba ku helaan, dad badan ayaa laga yaabaa inay muxuu ahay naxariis aanan jirkooda ku jirin ay waxa weeyaan ay gasho, oo ummaddii ay u naxaan, oo ay wax badan ay muxuu aha wanaag badan sameeyaan ayaa suuragal ah. ikhwaani, marka darsi hanoo noqoto dadka wax makastada ah, ama dadka aan muxuu ahay wax u aabayeelaynin, oo intay soo fariistaan baraha bulshada ay ku wada xiriirto, kadibna cudurkan gaalon buu ku dhacaa, wax kasta aan qasanno, wax kasta aan muxuu caafimaadka horimaas aan la imaadno. dad kale ho noocaas oo social mediaha soo dhigi, ilaah ha ka baqeeno, hana ogaadeeno inay ummadda halligayaan. cudurkan waa cudur dilaa ah, waa cudur kumanaan qof ay maalin kasta caalamka daafihiis ugu dhimato, waad ogsoon tihiin. faafitaankiisana aada buu u badan yahay. marka taxadir aan qaadano. taxadirka ugu weyna horeysaan u sheegnay waa atawakulu cala allah, alla in la tarataa subxaanahu watacaala. qul lan yusiibana ila ma kataba allahu lana huwa mawlana wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun. tawakulkaas aan xooga saarno, alla baryada aan xooga saarno, towbada xooga aan saarno, alla ku-xirnaanta xooga aan saarno, dhankaas ilahay fafiru ila allah, alla xaggii aan u cararno. tan labaadna waxyaabaha fayadhowrka ah oo caafimaadka qofka inaad wanaagsanaado ka qeyb qaadana, oy kow ugu tahay nadaafadda aan xooga saarno. kow ay ka tahay nadaafadda, gacmii ha noqdeeno, jirkii ha noqdo, dharkii ha noqdo, guryihii ha noqdeena, xaafadii ha noqoto, dhan walba in nadaafadda aada xoog loo saaro. sidoo kale taloodhinka ay soo jeediyeen dhakhaatiirtana aan ku dadaalno, oo muxuu ahaa meel walba waran oo yeelo oo la wada ogsoonyo dowladihii iyo dhakhaatiirtii dhan walba ay arrinta ayada ka hadleen. ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana watacala biasmaai lxusna wa sifaati lculaa inuu xanuunkaas dhammaanteen naga wada badbaadiyo. sidoo kale walaalkeen doctor calina ilahi subxana watacala badbaado deg deg ah iyo caafimaad deg deg uu ka siiyo. sidoo kale ummadda soomaaliyeedna inta la xanuunsan, muslimiinta inta la xanuunsan, caalamka inta duca mudan oo la xanuunsan, inuu ilaahay subxana watacala badbaado ka siiyo. sidoo kalena inta u dhimatay oo muslimiin ahna uu ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ahaay shahaado ugu dhigo, ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda u ku dhaafo, ilaahay darajadooda u ku sarmariyo, ilaahay dayqulqabriga ciriirigiisa uu ilaahay ugu badbaadiyo, firdowsi acla rabbi ku siiya ayaan ilahay ugu baryaynaa. hada wallahu aclam, wsala allah wslam cabdi rasuuli mustafa.